السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبايدين سلام يا صحابتي إذا شرفت بدن ملك استاذ الدونك كجوبتان وحيدين لي خير يا بركة يا نور راندباني بإذن الله الرحمن. وأنا جو سيروق شيخ جنال كداون سانا وسيروق شيخ جنال وحيدين لي يا صحابتي إذا وإذن كمقنا مركان رنتي إسده وحصاد وبا وحد ليسا إن وراسيو كله سو كريان أما دنا كله أفرا بدن يهرتي ذي يالان كار لما إنتن إسلام هاي بن أصحابتي يوتيوب كي لمان اللوبيا إن شاء الله هنا سوف أروقنا وشعل هاي هدي ورب رالك النقطة وحبدنا أنك هاللي دونا إن شاء الله الرحمن كإذن كنا وحيد الله هاي عافية عافمات لمان تيمبا إن أصحابتي يقولون وحرجينا يا إن جنالك دب أن تنقص النقطة دنا كرو قادان إن شاء الله إلهي إذن كي وحرب رنتي لورجر بحق تيك توك أما سناب كوحل إيجسو شير جريي هذا ستار قبلي أهيد كندا جار أهان قبل كألبرتو مقالة إدمنتون وحن ليه رنتي ضد بدن بيجسو شير جريي محل إيجسو شير جريي سبت محيطها ما سيروق بكندا جوكتا مسه سيروقي ملقبتها رجع أما دمرك هدبة قف دلعينيو أما قفبة أذينيو حالي هاي رونهانتي إن هذا سيدو أركتا أنت بدن سؤالها بدن اللي وديني وحي هاي هذا سيدو أركتا يوتيوبر هذا دون ويكسهلين لكن هذه كمان صهلين ولي محل عي رونهانتي إن أصحابتي إذا أنت بدن وحي يقول هنا أما يقول يقانن qof go'aankeeda uu adag yahay inaan ahay qofka laga gardaran yahayna mar walbaba u hiiliso hadduu ila dhashay oo uu qaldan yahayna aan dhaho waa qaldan tahay qaladka qaado adaa keensaday waxaan arkayay ayadoo baraha bulshada qaarkood laba qabiil loo kala jabay mareexaan iyo dhulbahante waxaan arkayay raggii mas'uulada ahaa ee dhan walbaba ka hadlayo laakiin dad ayaga isugu xiga labada qof ugu dhiigood iyo dhacaankooda waa isku baxay dad kala go'aya ma aha ayaga iska keen xiga marka xigta markii la dhaho ayaga iska keen xigo maxay yihiin dad dhacaankoodii iyo dhiigoodiiba isku baxay maxay noqdeen ehel iyo qaraabo walbo ayaga maanta isaga sokeeyo idinku maxaa tihiin oo ku imaateen waxa ku imaateen tulnimo iyo qabiil basaad ku imaateen laakiin ayaga labadoodii dhacaan baa isku baxay iyo dhiigoodii ubad qurux badan buu ilaahay ka siiyey maxaa ilaahay ka siiyey 15 ciyaala 15 ciyaala inta kuma yaalaan 15 markaa dhashay oo laba intay dhimatay 13 aa soo korisay oo hooyo u noqotay ciyaar ma aha haddana waxay leedahay kaalin weyn waxay leedahay in mar walba iyada la dhaho sax iyo qaladba waa lagu garab taagan yahay waayo barbaariyo ubad oo qurux badan ayay ahayd waxaan arkaya hooyada dad aflagaadaynayo oo waxay doonaanba sheegayo raggaba ha u badnaade waxaan arkayay dumarka maseersan dumarka laftinkooda naag ay tamaysa hadda aragto dumar ay tamaya hadda aragto waa dumar maseersan muxuu ka maseersan yahay qofkaasuu ka maseersan yahay intuu ilaahay caruur ugu talagalo gabadhan siiyey maasha allahu tabaaraka allah baa un leenahay allaha u barakeeyo baarakallahu fiik kuwa anfaco dalkooda dibadooda iyo dadkoodaba allaha oga dhigo inta ka sokow ayadu ma qaldanta qalad ma leedahay absolutely qalad waxay ku lahaan kartaa ana aan dhihi karaa inkastoo calafka uu yahay markay aragtay ninkan dhaqankiisa 2 ciyaal 3 ciyaal ay u dhashay inkastoo carruurtu ay meesha ka qorayd qadar kuma baajin karno mana qaban karno ma dhihi karno maxay uga hortagi weysay ee uga tagi weyday waayo ninkan wuxuu ahaa nin balwada aad u isticmaalo markay balwada ku aragtay guursatay ama labaha u haysa ama saddexa u haysa maxay uga tagi weysay ma dhihi karno qadarka ilaahay ayaa meesha ka qoraa inay inta dhashaan qornay ilaahaygi raxmaan ahaa sababtii uu meesha kugu joojin lahaa waxay doontaba ha noqotee allah raxmaanka ku dulkeenayo sababtina waad qaadanaysaa
maxaa ku qaadanaysaa allah arraxmaanka ku siiyo ku qaadsiiyey say doontaba aad ku joogtid farxad la-aan ku joog farxad ku joog haye cillad marka yaan looga dhigin maxay carruurtan intay dhalaysaba weyla joogtay hadda ay bannaanka u dhigtay waraabe daalay waxaa lii dirirtiisaa loo tagaa waa yeel xanuunsadayna xil ma garto markaan ku dhaho waan ku dilayaa aan ku dhaho waan kula noolaanayaa waan ku jeclahay ma iska dhaadhicin kartaa adigu inaa ijeceshoo ila noolaanaysid ma iskama dhaadhicinaysid nacayb baad ii qaadaysaa bal nin raga 2 jeer dharbaax bal nin raga maxaan ku dhahdaa dil naa naga tag buu ku leeyahay waxay hay cirka laga soo tuuraye calaamada tartiib ayaa halkaa lagaa marayaa adigoo arkayo ayuu ku leeyahay naayaa waxaa tahay naag waalan oo wareersan culummada intuu u tago baa haddana culummada waxay soo leedahay waryaahe ee dhegayso naagta waa la xanjafiyaa garaac waxaa ii soo laabanayo ninkii oo lasoo tashkiiliyey oo dhahayo naagta waa xanjafinayaa maxaa lagu yidhi cimaamadaada ama cadaygaaga ama wax saasa dharbaaxa lagu qabadsiiyey nin jim aaday oo 6 bag yeeshay 4 fool baa lagaa riday haye adigu ku soo xumeeyey lama dhahayo naag buu xumeeyey ninkaasi naag buu dilay lama dhahayo mid kala dhabarka saaranayso anaa nin rageed hantiyey ku leedahay muxuu ahaa lama sheegin muxuu soo qabtay lama sheegin okay waxay noo sheegtay oo kale ani hodan waxaan leeyahay hodan star magaca ay la baxday oo ku mahadsan tahay magacaada wanaagsan weeye role modelna waxaa u tahay dumarka Soomaaliyeed hogaamiyada tahay ku dayasho fiican baad leedahay waxaan leeyahay ninkaad afgaran weydo ninkaad garan weydo ninkaad dhaqaajin weydo bannaanka dhig kula muu dhalanin 3 baa kuu keentay 3 baa kuu keentay 3da kuu keentayna luqunta u suray adar iska baxdhe ilmahaaga miya hayso haddaa haysan kartid haddaad haysan karin kuguma abtirsanayaana sii adiga kuguma abtirsanayaana sii waa haddaa haysan kartidna hayso anusaan qabo hayso ma hayn kartid soo maaha isi ilmahaygaa lagu yidhi ama waa la iskugu kaa dhajiyey ama gabadhaana waxay tiri anigu ma raba ninkan waxaa lagu yidhi ilmahayga ii dhig hadda aniga aad i rabin kadibna aan ku furo madaxaagii iyo waxaa la isku xiray in uu ninkaani ku furo iyo madaxaagii isku xiray maxaa dhacaysa markaa inaad dhahdid war xarigayga isii waa kaase ilmahaaga iyo carruurtaadii haddaad hirir waaran joogtaa leen asaad hood hala ku raaci anunbaa hooyadaa ha u malaynin cunugaasi inuu adiga ku moog yahay ku moogaan doono wallahu isa ku moogaanaynin maasha allahu tabaaraka allah carruur baa ruu ilaahay siiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin inkastoo maqnaan in badan ah aanu kala maqnayn laakiin insha allah biidni illaahi raxmaan mar dhow isu imaanaynaa dhammaanteen haddii allah raxmaanka ah uu saqiro laakiin waxaan leeyahay hooyooyinka maanta haysta carruurtoodana inay ku fara adeegaan kuna faanaan dad baa inta badan waxaan arkaa carruurtayda haysto laakiin ma daneeyo mana fiiriyo mana eego because anigoo ay maxaan ku idhahdaaye teenager ah ayuu ilaahayga carruurtayda siiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin maantana waa isla egnahay laakiin markaad 30 sano ku gaartid naag kale cunugay dhashay ayaad jeceshahay inaad ka hadashid haddana ilaahay markuu wiilku siiyo Soomaalidu inkastoo wiilashu jecel yihiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin anigu hal gabar baa ahayd inta kalena waa wiilal maasha allah tabaaraka allah hodan star sidoo kale waxay soo karsatay carruuraan inaba caadi ahayd waxay tiri waxaan u imi ninkayga oo naagti saaxiibaday ahayd guriga la galay ninkii isku teedhi karay inuu aabigiis karay ama faarayga soo galo horta wiilashan xunxuna wiilkan xuna baasterka oo kaamirada cabdikariin ka daba wado oo kaamirada ninkan waalan oo naagtii saaxiibtay ahayd saaxiibtay oo farajeerkayga u furay cuntadayda siinay gurigay ku soo macsuumay doofaarkii ka macsiiyaystayo oo intay shahwadiisa qaaday caan ugu dartay oo siisayo dhaanteeyay oo nijaasada banaanka la geeyaa absolutely nijaaso iyo xaaraan iyo macsuulo waa in banaanka la istaajiyaa
bannaan okay saaxiibadaa markuu ninkaagii dib ugu soo noqday run ahaantii borogaraam hore oo hadda ka hor la ila soo wadaagay baa jiro gabar saaxiibadeed ninkeedii ka qaaday ninkeedii ee carruurta u dhashay weliba 2 wiil ayadoo u dhashaa laga dulqaaday yaa ka dulqaaday saaxiibadeed baa kaga dulqaaday maxay uga dulqaaday in ay ninkaa u faanayso keliya inuu nin fiican yahay intay guriga imaatay inay aragtay inuu ninkaa nin wanaagsan yahay gabadhii iyo ninkii waa isdagaaleen kadibna ninka iyadaa xaraysatay hadda hodan star saaxiibadeedii guriga ay keentay oy gurigeedii tiri joog oy tiri gurigayga ku noolow baa intay oroday ninkeeda sarirta u kortay kadibna maxay tiri waa daantaysay nijaasaa tahay nijaasana bannaanka la dhigaa absolutely lama haysan karo waa lagu qasban yahay in bannaanka la iska dhigo ninka u hiilinayow ama qabiil ugu hiili ama wax kale ugu hiili gabar soomaaliyeed oo la dhibaateeyey oo rag usoo safteen ma aragti wixii naag ahaa ninkii baa loo soo saftay intii la xumeeyey haddii la doono yaa ku xumeeyey nin baa kusoo xumeeyey nin baa kusoo xumeeyey nin baad u hiilinaysaa nin baa kusoo rafaadiya nin baad u hiilinaysaa adduunka waxaa igu darneed malyuun rooblay gabadhan mareexaan ahaan iyo mukhtaar ahaan ayaad u caayaysa oo aflagaadaynaysa mukhtaar waa nin baa ku xumeeye naagi kuma xumaynin waa lagu gurmado waa lagu garab istaagay social mediaha waxaan ka dhicin adduunka ma laha aan kuu sheega runta hodan mareexaan ahaan ha ku ciirsani hodan way kuu daqmatay shalay weyadaa caynaysay maxaan ku dhahdaay mukhtaar caayaysay oo garabkaaga taagneed maanta si adoo u hiilinayo cabdikariin adoo u hiilinayo inaad hodan soo lacda waa ku qaldan tahay tan kale waxaan ku leeyahay hodan iyo maxaan ku dhahdaa cabdikariin waa iska kaaxigaan ayaga iska kaaxigo abtirkoodu waa isgaaraa adigu laakiin soomaalinima ugu timi soomaalinima adiga ugu timi bal hadda eeg ayaguna abtirkooda isgaaro adigu shaqo iskuma lihidiin taada kale shalay way kuu hiilinaysay aday kuu hiilinaysay kuu ordaysay ee lahayd gabadha maxaa loo haleeyay gabadha maxaa loo maagay daaro ismaaciilow gabadha maslaxa gabadha wax siiya gabadha raaligeliya haddaa annaga xumaanay ha nagu dayanina daaroodkii kale aaway bay shalay kuu lahayd maanta maxaad u haysataa faraqeeda kugu dhaji laakiin waa naag nool wallahi waa iska kaa celinaysaa wallahi hodan hadal uma baahno hodan hiilo uma baahno ee waxay u baahan tahay oo keliya hodan gabdhaha Edmonton jooga inay support siiyaan oo ay garab istaagaan xalfaday ka qurux badan tahay in loo dhigo hodan in la soo dhaweeyo hodan in la yiraahdo hogaamiye dhaba tahay hore u soco waxaan idinkaga tegayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intii aad rabteena waa idin iri ma sha Allah